ummadana waxaan kala oran lahaa ku boorin lahaa war aan wax beerano warbeeraha magaciin shiriyade gobolkan hadda igu horeysa baran waa gobol runtii salad u noqon kara Soomaaliya dhun buu noqon kara waxba laga soo saari kara Soomaalida arag beeraha xoog hala saaro zaraaca nabiga maxamed sallallahu alayhi runtii noogu booriyay in zaraacada iyo beeraha in aad iyo aad loogu dadaalo culimada islaamku waxay yiraahdeen acmaasha business kala sameeyo zaraacada iyo sanaacada iyo tijaarada ayuma afdal bal imaamna wuxuu yiri az-zaraacatu afdal bi maxaa yeelay زراعة مركب ولا بير ورشديه بقى إيمانية بل هذا فيري نيكا صوصارة ووتر ميلون يعني حب كليه عرفت حبك بيا بطيخ إنك تصمارده يدوك بطيخي شمام كي بقى بطيخ وتقعنا صحنا ما رد صمارده حاجة عربي بقى كلها كاش شمام كانتلوب باليه كانتلوب شمام بالله شمام باليه بطيخ لما ده واحد ذلك إيه قبصنا بكمل تبار بطيخ شمام بيكير برك ذلك يقول هذا كذب عم برتي بركة كاش شمام كنت شمام بالله أما كانتلوب بالله قرها واسku dhow yihiin marka ninka hadda qarab beera warshadii baa imaanaya tamaatada green house baan ku soo arkay xataa maartay meel aan baran ka fogeyn oo aad isna u fiican marka beeraha waa in beeraha la beeraa oo raggu beeraa oo gabdhuhu beeraha ay beertaan gabdhaha laftigoodu beeraha waa geli karaan marka qofku inuu la soo baxaa quudkaaga waa in aad gacantaada kula soo baxdaa ee aad noqon waxa la sameyn kara poultry production oo qofku waa sameyn kara maartay ukunta digaag inta la sameeyo ukunta laftigiisii anu cilmiga beeraha runtii waa bartay waa la sameyn karaa qamadi baan beeri karnaa waxaan faaw iyo adduunyada lagu qorayo lagama beeri karo qamadi Soomaaliya waxba kama jiraan meel caws ka baxo cawska iyo qamadigu waa walaalo ogaada arinta ayada yaa been leeyni sheegay meel caws ka baxo qamadina waa ka bixi karaa beeri karnaa masagadi galeeydi hadii la yiraahdo baran waxay ku takhasustay geedaha la yiraahdo mawaalixda ama citruska kale waxa laga yaabaa inaan magaalo kale wax kale loo diro beeraha waa la qaybiyaa wasaaradda beeraha qaybin karta marka intaas aan oran lahaa qurbajo dib ugu soo laabo dalkaaga oo u faa'iideey dadkaaga si isbedel iyo horumar looga gaaro dhanka siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada iyo dhammaan arrimaha bulshada ee kale khibradaada iyo dhaqaalahaagu waxa ay muhiim u tahay kobcinta wacyiga iyo waxqabsiga bulshada gudaha fariimaha iyo warbixinaha xarunta hadaf